wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa sheegaya in wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland hadda laga qabtay garoonka magaalada muqdisho ee caasimada dalka. booliska Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku xidhay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo halkaasi ku sugan noo xaqiijiyeen. cabdirashiid janan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Kismaayo wuxuuna ku socday magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Ethiopia isaga oo Muqdisho ka raaci lahaa diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa halkaasi lagu qabtay sida aan xogta ku helay. go'aanka dowladda Soomaaliya ee ah in diyaarad kasta oo ka baxaysa ama tagaysa Kismaayo ay soo marto Muqdisho ayaa janan ku qasbay in uu Muqdisho yimaado maadaama aysan jirin diyaarad toos u aadi karta Addis Ababa oo ka baxaysa Kismaayo ayaga oo fulinaya go'aanka dowladda. Cabdirashiid janan ayaa la sheegaa in loo haysto xadgudubyo uu horey uga geystay gobolka Gedo oo ay ka mid yihiin xasuuq dad shacab ah sida ku cad gal dacwadeed ka yilay maxkamadda gobolka Banaadir. waxaa jira dacwado ay horey ugu soo oogtay xeer ilaalinta qaranka oo la xiriirtay maxaabiis 4 qof ah oo uu sanadkii 2015 ku dilay doolow kadib markii uu xabsiga kala baxay sida lagu eedeeyay. hase yeeshee maxkamadda gobolka Banaadir ayaa baabi'isay dacwadaasi 30 Abriil ee sanadka 2019 kadib markii sida la sheegay ay ka laabatay xeer ilaalintii soo gudbisay dacwadaasi. si kastaba wararka ayaa sheegaya in ay jiraan eedeymo kale oo loo haysto oo weli aan la cadaynin. sida ay wararku sheegayaan iyada oo ay jiraan arrintaasi ayaa haddana waxaa kale oo jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Jubbaland taasi oo taagan waqtigan hadda lagu jiro qir iyo qir. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalayta ahayd waxay ku dhawaaqday in diyaarad kasta oo ka duusha Kismaayo ama u socota in ay ku qasban tahay in ay soo marto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkaasi oo lagu baarayo iyada oo ay u muuqato in siyaasiyiinta iyo weliba madaxda ka tirsan maamulka Jubbaland in ay suurtagal tahay in dowladdu ay halkaasi kula hadho xabsina loo taxaabo. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland oo ku saabsan mas'uulkan ahaa wasiirka amniga maamulkaasi ee maanta lagu qabtay garoonka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyada oo la sheegayo in mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Jubbaland ay aad uga walacsan yihiin maritaanka magaalada Muqdisho oo ay ka cabsi qabaan in haddii ay halkaasi maraan ay qabtaan booliska ku sugan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde maadaama oo uu jiro khilaaf xooggan oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland oo doorashadii dhacday 22 bishan ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in aysan aqoonsanayn. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay sababta ay ciidamada AMISOM ugu sii qulqulahayaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka Galmudug. taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ciidamada AMISOM loo geeyay deegaanada maamulkaasi Galmudug. Qooje ayaa sheegay in ciidamada Jabuuti ee Hiil Walaal ee la geeyay Dhuusamareeb iyo Guraceel ay ka caawin doonaan howlaha nabadgelyada deegaanadaasi. sidoo kale taliyaha ayaa xusay in aysan jirin dhibaato kale isla markaasina ay ka shaqayn doonaan horumarka xasiloonida Galmudug oo kaliya. ciidamadan Hiil Walaal ee ka socda dalka Jabuuti kana tirsan AMISOM waxay halkan u yimaadeen in ay naga caawiyaan amniga dhibaato kale ma jirto waa been abuur wararka la leeyahay ee ah halkan lagama jeclaa waa walaalehen gacan ayayna naga siin hayaan nabadgelyada iyo guud ahaanba waxa aynu u baahannahay ayuu yiri taliyaha. sidoo kale wuxuu sheegay ciidamada Jabuuti in ay yihiin ciidamo Soomaali ah oo inaga oo kala ah oo shanta Soomaaliyeed ka mid ah isla markaasina ay naga xigaan ciidamo kasta oo dalka ku sugan. dhinaca kale taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa intaasi ku daray in ciidamadani ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka. dhowaan ayaa la filayaa in Galmudug ay ka dhacdo isbedel doorasho iyada oo doorashada guud ee maamulkaasi lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo ay dowladdu sheegtay in halkaasi lagu qaban doono.
dhanka kale waxaa saaka magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom gaar ahaana kuwa dowladda dalkaasi jabuuti ee hel walaale ciidamadan ayaa kasoo ambabaxay dhanka gobolka hiiraan iyagoona xalay u hoyday inta u dhaxaysa degmooyinka guraceel iyo dhuusamareeb ee gobolkaasi galguduud xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta galmudug siyaasiyiin iyo saraakiil ayaa ciidankan kusoo dhoweeyey magaaladaasi wararka ayaa intaasi ku darahaya in ciidamadu ay fariisimo cusub ka samaysanayaan xarumaha dowladda ee ku yaala dhuusamareebe sidoo kale waxa ay degeen garoonka ugaas nuur ee magaalada dhuusamareebe si ay u sugaan amniga garoonkaasi horey ayaa waxaa magaalada ugu sugnaa ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda kuwaasi oo laga qaaday gudaha magaalada muqdisho arrimahan ayaa kusoo aadaya iyada oo dhowaan shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug lagu qaban doono magaalada dhuusamareebe haddana halkaasi looga gogol xaadayo dib u heshiisiinta beelaha dega maamul goboleedkaasi galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa sheegaya in wasiirka amniga ee maamul goboleedka jubbaland hadda laga qabtay garoonka magaalada muqdisho ee caasimada dalka booliska soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku xidhay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo halkaasi ku sugan noo xaqiijiyeen cabdirashiid janan ayaa waxa uu ka yimid magaalada kismaayo wuxuuna ku socday magaalada addis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya isaga oo muqdisho ka raaci lahaa diyaaradda ethiopian airlines ayaa halkaasi lagu qabtay sida aan xogta ku helay go-aanka dowladda soomaaliya ee ah in diyaarad kasta oo ka baxaysa ama tegaysa kismaayo ay soo marto muqdisho ayaa janan ku qasbay inuu muqdisho yimaado maadaama aysan jirin diyaarad toos u aadi karta addis ababa oo ka baxaysa kismaayo iyaga oo fulinaya go-aanka dowladda cabdirashiid janan ayaa la sheegaa in loo haysto xadgudubyo uu horey uga geystay gobolka gado oo ay ka mid yihiin xasuuq dad shacaba sida ku cad gal dacwadeed ka yilay maxkamadda gobolka banaadir waxaa jira dacwado ay horey ugu soo oogtay xeer ilaalinta qaranka oo la xiriirtay maxaabiis 4 qof ah oo uu sanadkii 2015 ku dilay doolow kadib markii uu xabsiga kala baxay sida lagu eedeeyay hase yeeshee maxkamadda gobolka banaadir ayaa baabi'isay dacwadaasi 30 abriil ee sanadka 2019 kadib markii sida la sheegay ay ka laabatay xeer ilaalintii soo gudbisay dacwadaasi si kastaba wararka ayaa sheegaya in ay jiraan eedeymo kale oo loo haysto oo weli aan la cadaynin sida ay wararku sheegayaan iyada oo ay jiraan arrintaasi ayaa haddana waxaa kale oo jira khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland taasi oo taagan waqtigan hadda lagu jiro qir iyo qir dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalintii shalayta ahayd waxay ku dhawaaqday in diyaarad kasta oo ka duusha kismaayo ama u socota in ay ku qasban tahay in ay soo marto magaalada caasimada ah ee muqdisho halkaasi oo lagu baarahayo iyada oo ay u muuqato in siyaasiyiinta iyo weliba madaxda ka tirsan maamulka jubbaland in ay suurtagal tahay in dowladdu ay halkaasi kula hadho xabsina loo taxaabo ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka jubbaland oo ku saabsan mas-uulkan ahaa wasiirka amniga maamulkaasi ee maanta lagu qabtay garoonka magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyada oo la sheegayo in mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland ay aad uga walacsan yihiin maritaanka magaalada muqdisho oo ay ka cabsi qabaan in haddii ay halkaasi maraan ay qabtaan booliska ku sugan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde maadaama oo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedka jubbaland oo doorashadii dhacday 22 bishan ay dowladda soomaaliya ku dhawaaqday in aysan aqoonsanayn dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka warbixisay sababta ay ciidamada amisom ugu sii qulqulhayaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka cabdicasiis cabdullaahi qooje oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ciidamada amisom loo geeyey deegaanada maamulkaasi galmudug
qoojo ayaa sheegay in ciidamada Jabuuti ee hil walaal ee la geeyay Dhuusamareebe iyo Guraceel ay ka caawin doonaan howlaha nabadgelyada deegaanadaasi sidoo kale taliyaha ayaa xusay in aysan jirin dhibaato kale isla markaasina ay ka shaqayn doonaan horumarka xasiloonida Galmudug oo kaliya ciidamadan hil walaal ee ka socda dalka Jabuuti kana tirsan AMISOM waxay halkan u yimaadeen in ay naga caawiyaan amniga dhibaato kale ma jirto waa been abuur wararka la leeyahay ee ah halkan lagama jecla waa walaalaheen gacan ayayna naga siin hayaan nabadgelyada iyo guud ahaanba waxa aynu u baahannahay ayuu yiri taliyaha sidoo kale wuxuu sheegay ciidamada Jabuuti in ay yihiin ciidamo Soomaali ah oo inaga oo kala ah oo shanta Soomaaliyeed kamid ah isla markaasina ay naga xigaan ciidamo kasta oo dalka ku sugan dhinaca kale taliyaha qaybta 22aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa intaasi ku daray in ciidamadani ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka dhowaan ayaa la filayaa in Galmudug ay ka dhacdo isbedel doorasho iyada oo doorashada guud ee maamulkaasi lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug oo ay dawladdu sheegtay in halkaasi lagu qaban doono dhanka kale waxaa saaka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug gaaray ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa dowladda dalkaasi Jabuuti ee hil walaale ciidamadan ayaa ka soo ambabaxay dhanka gobolka Hiiraan iyagoona xalay u hoyday inta u dhaxaysa degmooyinka Guraceel iyo Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galguduud xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya mas'uuliyiinta Galmudug siyaasiyiin iyo saraakiil ayaa ciidankan ku soo dhaweeyay magaaladaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamadu ay fariisimo cusub ka samaysanayaan xarumaha dawladda ee ku yaala Dhuusamareeb sidoo kale waxa ay degeen garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb si ay u sugaan amniga garoonkaasi horey ayaa waxaa magaalada ugu sugnaa ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dawladda kuwaasi oo laga qaaday gudaha magaalada Muqdisho arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo dhawaan shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada Galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb haddana halkaasi looga gogol xaalayo dib u heshiisiinta beelaha dega maamul goboleedkaasi Galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa sheegaya in wasiirka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland hadda laga qabtay garoonka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka booliska Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ku xidhay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo halkaasi ku sugan noo xaqiijiyeen Cabdirashiid Janan ayaa waxa uu ka yimid magaalada Kismaayo wuxuuna ku socday magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Ethiopia isaga oo Muqdisho ka raaci lahaa diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa halkaasi lagu qabtay sida aan xogta ku helay go'aanka dawladda Soomaaliya ee ah in diyaarad kasta oo ka baxaysa ama tagaysa Kismaayo ay soo marto Muqdisho ayaa Janan ku qasbay in uu Muqdisho yimaado maadaama aysan jirin diyaarad toos u aadi karta Addis Ababa oo ka baxaysa Kismaayo ayaga oo fulinaya go'aanka dawladda Cabdirashiid Janan ayaa la sheegaa in loo haysto xadgudubyo uu horey uga geystay gobolka Gedo oo ay ka mid yihiin xasuuq dad shacab ah sida ku cad gal dacwadeed ka yilay maxkamadda gobolka Banaadir waxaa jira dacwad ay horey ugu soo oogtay xeer ilaalinta qaranka oo la xiriirtay maxaabiis 4 qof ah oo sanadkii 2015 ku dilay doolow kadib markii uu xabsiga kala baxay sida lagu eedeeyay hase yeeshee maxkamadda gobolka Banaadir ayaa baabi'isay dacwadaasi 30 Abriil ee sanadka 2019 kadib markii sida la sheegay ay ka laabatay xeer ilaalintii soo gudbisay dacwadaasi si kastaba wararka ayaa sheegaya in ay jiraan eedeymo kale oo loo haysto oo weli aan la cadaynin sida ay wararku sheegayaan iyada oo ay jiraan arrintaasi ayaa haddana waxaa kale oo jira khilaaf xooggan oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Jubbaland taasi oo taagan waqtigan hadda lagu jiro qir iyo qir dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalayta ahayd waxay ku dhawaaqday in diyaarad kasta oo ka duusha Kismaayo ama u socota in ay ku qasban tahay in ay soo marto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkaasi oo lagu baarayo ayada oo ay u muuqato in siyaasiyiinta iyo weliba madaxda ka tirsan maamulka Jubbaland in ay suurtagal tahay in dawladdu ay halkaasi kula hadho xabsina loo taxaabo ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland oo ku saabsan mas'uulkan ahaa wasiirka
amniga maamulkaasi ee maanta lagu qabtay garoonka magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyada oo la sheegayo in mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Jubbaland ay aad uga walacsan yihiin maritaanka magaalada muqdisho oo ay ka cabsi qabaan in haddii ay halkaasi maraan ay qabtaan booliska ku sugan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde maadaama oo uu jiro khilaaf xooggan oo u dhaxeeya dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland oo doorashadii dhacday 22 bishan ay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in aysan aqoonsanayn